السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada kanaalka caalamiga ee Maxamed Nuurdin Technology Solution. maanta casharkan qaadan doono waxaa waaye sida flashka lagu diido computerkaaga in xog laga qaato. marka waad searchiga tagaysaa, waxaadna ku qoraysaa sidaan soo socoto rec edit. waad dul tagaysaa, click ayaad ku siinaysaa. waxaa kusoo furmaya faylskan waxaa ka doonaysaa HK local machine ayaad soo furaysaa. waxaadna kasii dooranaysaa system, halkaas noogu muuqdo. haddana waxaad dooranaysaa current control set ayaad soo furaysaa. service ayaad kasii dooranaysaa. halkan ayaad waxaad ka raadinaysaa USB store. waa kana halkan inuu muuqdo click ayaa ku siinaysaa. meeshaas start ay qoran tahay click ayaa ku siinaysaa, double click. marka halkan waxaa noogu muuqdo tiro oo 3 ah. tirada 3 macnaheedu waxaa waaye uu ogolaaw flash computerka in la soo geliyo. 4na waxay u taagan tahay in computerka loo diido flash. minimize naga dheh. kabacdi waxaan sameynaynaa iconskeena soo bandhigaynaa marka koowaad. my pc click. haddeertaan marka flash ayaan gelinayaa. flashka waan geliyey balse ma soo qabanin. sidaad u jeedaan flashka hadda waa geliyey mana soo qabanin. waxaan tagaynaa meesha data startiga, click ayaan ku siinaynaa. meesha hadda oo 4ka ah ayaan waxaan ka dhigaynaa 3. hadda waxaana soo bixi doono flashkeena haddii waa kasaa flashka hadda waa noo soo baxay. double click haddaan ku siino xogtii oo noogu jirta flashka aad ayaan u arkaynaa. aad ayaan loo isticmaali karaa. marka cashirkan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay. fadlan kanaalkan subscribe saara, kuna xirnaada cashirkan kiis kale intaan ku wada kulmayno. sidaa nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.